بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد marka hore waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo dhammaan shacabka deegaanka meel bay u joogaan khaasatan gobolka Jarar khaasatan degmada Dhagaxbuur khaasatan magaalada waxaan leeyahay aniga oo ah Cabdiqaadir Sheekh Axmed waxaan ku sharxanahay xisbiga sinaanta iyo cadaaladda xisbigaas oo ah ku ka tartama dhammaan Itoobiya oo dhan iyo deegaankeenaba marka waxaan u baahnaa marka hore saa loo ogaado inaan xisbiga ku jiro oon xubin ka ahay marka labaad waxaan doonayaa inaan aad aan u mahadceliyo dhammaan taageerayaasha xisbiga meelba ay waddanka ka joogaan iyo kuwa khaasatan aniga sida gaarka ah taageera walaaltinimada iyo wanaagga weyn ee naga dhaxeeyo aad baan intaasna ugu mahadcelinayaa waxaan doonayaa inaan idin yara faahfaahiyo qaabka iyo geed socodka ay doorashada socoto waxaad ogtihiin doorashada in mar iyo laba dib loo dhigay laakiin ugu dambeyntii waqti yar oo xadidan oo aad ciriiri ah baan loo qabtay alxamdulillah waqtigii waan isticmaalay waan ka faa'iideysanay waan isdiiwaan gelinay waan tagnay degmadeenadii Dhagaxbuur iyo meeshii aanu doonaynay in looga codeeyo waan ka qayb galay si fiican baa Dhagaxbuur nagu soo dhaweeyay waxaan ka cudur daaranayaa shacabkii sida fiican Dhagaxbuur igu soo dhaweeyay aan waqtiga badan aan la qaadanin taas oo sababtay xilliga aan nimid inay koobnaa halkana aan caasimada dowlad deegaanka Jigjiga aan deganahay ku lahaa hawlo khaas ah baan u soo degdegay waan ka cudur daaranayaa inaan waqti badan la qaato waan jeclaa marka waxaad ogaataan wax walba zaman buu leeyahay iyo waqti hadda waqtigan lagu jiro waxaan maraynaa 2021 wuu dhamaaday zamankii la oranayay waxba lagu shubtaa iyo waxba la istabamariyaa iyo waxba ma garanaysaa waa iska Afrika sheekadii noocaas ahayd meesha ka saar iska ilo wata hal beeleedahay hadii aan u aragno in wax madmadow uu jiro hal beeleedahay halkeedana diyaar baan u nahay taas waa idin sheegayaa taageerayaashada waxaan leeyahay yaanan hadallada noocaasa ma garanaysaa jilicsan dhagta haw dhigana waan leeyahay hadday Afrika meeshu tahay ay waliba Itoobiya tahay de Itoobiyadii maanta tii shalay maaha tani waa tu u diyaara inay wax ka bedesho wixii shalay marka waxa weeyaan annagu waxaan u tartamaynaa si xor ah oo xalaal ah oo cadaalad annagoon cidna boobin cidna handadaynin cidna aan macnaheedu wax ka durkisanaynin waxaanu jecel lahay cidda kale ee meesha ku tartamaysa inay u tartanto sida nidaam iyo asluub leh inay u tartamaan maxaa yeelay ma fiicna ururna inuu urur kale uu ma garanaysaa qaab aan sax ahayn oon ku jirin geedi socodka doorashada inuu u dhaqmo sax maaha dadkana waxaan doonayaa inaan u yarafiyo oo maalmahan miidiyaga dhex socday oo leeyihiin Dhagaxbuur baa Cabdiqaadir lagu weeraray horta waxaan idin sheegi Dhagaxbuur waa magaaladanadii waa taan ku dhalanay waa taan ka soo jeednay cid anaga Dhagaxbuur wax nooga qaadi karta ama nooga hajin karta ma jirto anagu Ilaahay aaminsan baan anaguna saamisanahay way jirtay waxyaalo yar nidaam xun oo dhaqankii hore aan islaha dawladii hore ayaa la guuray dhaqankan xun maanan filanaynin dawladda uu ku siismo hadda uu ka yahay gadawadaanka inay dhaqanno noocana ay soo bandhigayso maal asif xaafadaha kamida oo ehelka anoo booqday bay ciidamo dhowr 12 iga soo daba galeen xaafadiiba igu yimaadeen meesha maalbeerga iyo hadallo aan macquul ahayn bay ka sheekeeyeen almuhim adigu waxay ka hadleenba meesha uu guri yahay wax baan u sheegnay way iska baxeen hadallo noocaas ku dhaqmeen taana waxaan leeyahay waxyaalaha noocaasa ma habboona ma fiicna waanu garanaynaa wixii ina soo maray
foosha xumaa waan ognahay marka taana waxaan jeclahay in waxyaalaha noocaasa in laga digtoonaado ee dadka walaalaha ah ee wada dhashay kala dilaya ma fiicna in qaabkaa loo dhaqmo waanan ka digayaa aadna waan uga xumahaynaysaa wax u dhacaan ta kale waxaan leeyahay waxa weeyaan doorashadu xilli bay leedahay kullii xilliga aan anagu qaadanay kaarhka isdiiwaangelinta kadib waxaan xor u nahay oo dastuurku noo ogol yahay inaanu shacabkanagu u shirsanno si xor ahoo xalaala taana wadooyinka loo marayo ee saxdaa baan u mari doonaa hadduu ilaa yidhaahdo cidda walbahaarka uu kaga jiro ama shaka uu kaga jiro waa meesheedayo taasi annaga hawl noo taalla ma aha dadba iska jira oo aanu naqaano oo si yare qaabtana u dhaqma kuwaana waanu naqaanaa waxaa jira waxa la yihahda bashaguridu waxaa weeyaan xaafaddu marka ay guurto kolba xaafadda dambe ay timaado uba bashadu iskala qabto oo bashaguri baa la yihahdaa waa tu aan dhaqaaq u sameyno kolba magaranaysa cidda timaado unbay la janqaadaa markaa bashagurigana waxaan leeyahay dee waxaaba laga yaabaa inuu ilaahay khayr keeno aanu anagu cidda maanta joogto idin dhaana haddaanu ku guulaysano doorashada marka bashagurida waxaan leeyahay markaa ha ku ekaato dee waxyaalaha ay hadda dhaqdhaqaaqa jira ee noo muuqdo hala daayan oran lahaanu marka taa waxaan kaga gudbo waxa weeyaan kulley waxaa jirta af iska common ah ay ku wada hadlaan dhammaan ururada tartamayaasha ama axsaabta siyaasadeed ku hadlaan baa iska jiro common ah waxbaan caddaynayaa deeraan dhisayaa maxaybaa kana waa la wada yaqaanaa laakiin waxaan leeyahay haddaad aniga doorataan anoo cabdiqaadir sheekh axmeda waxaan leeyahay 3 arrimood shacabka in ka soo jeedo ee degmada dhagax buura waxaan idiin sheegayaa iyo gobol ahaanba waxaan idiin sheegayaa aniga haddaad xildhibaanimada igu taageertaan ood i doorataan 3 arrimood aniga igu milmaysaan anuu been idiin sheegi maayo idinla khaymin maayo anuu idiin sheegaato saddexaada waxaad idinku xaq u leedihiin cid ku raaligelin maayo cid anuu ku raaligelin maayo horta 3 arrimood waa idiin ballan qaadi haddaan nafta waayin oo anugu aan doorashada ku guulaysto taasna waa taa kolley waan hadli doonaa waxyaalo badan oo muhiimana waan ka hadli doonaa waxaan taageerayaashada mar walbaan u sheegayaa inaad isdejisaan waan isku kalsoonahay waana is aaminsanahay ilaahayna waan aaminsanahay anugu waxaan idiin sheegayaa wax walba oo muhiima anugaan hayaa wax walba oo muhiima oo aan anigu cidda iga soo horjeeda aan anigu kula doodi karo waan haystaa marka waxaan idin leeyahay waxba shaki inuu idinka gelin waa iska afrika iyo sheekooyinka noocaasa shaki inuu idin gelin waxaan inta kale oon doonayaa inaan in yara ifiyo waxaan aada uga xumahay anigu ka cabdiqaadir ahaan maanta nabadan deegaanka ka jirta horta ilaahay baa keenay waa nicmatu min allah weyaan ilaahay baa keenay cidna ma sheegan karto ilaahayna hanoo ziyaadiyaan leeyahay waxaan doonayaa inaan yaro ifiyo dadkii usoo halgamay systemkan maanta jira ee taagan ee dhisan dadkii usoo halgamay horta in la isweydiiyaa muhiima xaggee ku dambeeyeen maxaase loo waayey maxaase isbedelay dadkii systemkan usoo halgamay ee waxaad ogeedeen usoo maray horta maanta meesha ma joogaan badi haddaan 2 ruux iyo aan kusoo koobi kara mooye waxaa weeyaan aawo dadkii sharafta lahaa ee usoo halgamay systemkan maanta dowladdan inay dhisanto oo dowladdii inaga horeysay ee cadowga ahayd la soo halgamtay ee dhibta iyo waxaad aragtay usoo maray horta maanta meesha ma joogaan ee soo gardaadiyay systemkan maanta meesha jira waxaan xusayaa oon doonayaa inaan ku caddeeyo hadalkeyga waxaa weeyaan dadkii ahlu sharafka ahaa ee ay ka midka ahaayeen cabdirashiid cali shucaac oo kale maxamed aadan bile aadan allaale suldaan maxamed bere bashiir garaad ninkii la oranayay muxuu ahaa khadar jigre maxamed aflow raggii sharafta lahaa ee systemka soo gardaariyey ee halkaas soo gaarsiiyey horta maanta ma joogaan ilaa kii ugu dambeeyeen ognahay
wixii loo geystay gurigiisa iyo dhibkii loo geystay maxamed colaad ahayn ognahay dadkii waa wanaagsanaa ee gudaha ka dadaalayay ee dadaalka ballaaran halkan gudaha ka waday xilligii uu systemkan jiray waxaa aragtida soo qabtay meeye hal la isweydiiyo horta dadkii maanta meesha ma joogaan waxaad isweydiisaan dadka ahlu sharafka ah horta xaggee ku dambeeyeen maxaase ku dhacay kulley idinkuna waxbaad ka ogtihiin xaqiiqdana waan sheegi doonaa insha allahu marka ay waqtigeeda gaadho waxaan hadda kale oo doonaya inaan halkan yara cayimo waxaa weeyaan annaga nin baa la baabi'iyey oo 15 sano ummaddan deegaanka degan khaasatan dadka haybta gaarka sheegta si gaara ula dagaalamay oo baabi'iyey ninkii sidaa noo galay ee la baabi'iyey waxa uu meesha kaga tegey waxaan u aynay xaqiiqatan degmooyin buu noo sameeyey degmooyinkii maanta way jiraan way ismaamulaan waa degmooyin dhisan oo isku filan waxaan ka xumahay qaabka loo maamulay qaab doorashada oo iyadana xaqiiqdeeda marka ay gaadho aanu sheegi doono iyadoo lagu salaynayo reer hebel baa u badan oo reer hebel baa khaasatan usii badan macquul maaha khasaaraha dowladu markay meel timaado waxbay soo kordhisaa ee wax ma baabayso waxaa weeyaan degmooyinkaasi dadka ku nool ee degan waa dad shuruudihii looga baahnaa ee degmo ay ku asaasmi karta oo dhan leh laakiin waxaan ka xumahay meesha ay mareen waan isla ognahay kolley haddii annagu aan ku guulaysan doorashada soo socota xisbi ahaan waxaanu diyaar u nahay xuquuqdooda inaanu daydayno xuquuqdooda sida macnihii aan macquulka ahayn looga qaaday inaan u daydayno taasaan ka hadli lahaa waxaan kaloo fariin uga dirayaa shacabka deegaanka aan u sheegayaa 27 sano muddo gaaraysa bay inaga maqan tahay doorasho xor oo xalaal ah oo laan haynin waxaanu ognahay dadkii ina haystay jundaaga ahay dhibkaad ogeyd waddanka u geystay iyo qaabkii ay noo geeyeen raadkoodii ilaa ay hadda dhibkooda aan kasoo kabananahay 27 sano wax doorasho una soo martay ma jirto wax naloo garta mooye oo ama wax laga weydiiyey ama inagu meel lagu dooranayo isla ogeyn ma jirto waan ognahay waxdee iska malaayo waa la mooye waxaan ka digayaa oon u sheegayaa shacabka maanta jira ee deegaanka war maanta wixii la soo maray waynu ognahay maanta gacantiinna wax walba ku jiraan shacabka waxaan u sheegayaa meel walba ay joogaan maanta gacantiinna ayay ku jirtaa doorashadu markaa reer walooba ama cid walooba cidda adiga macquulka ku ee aan leedahay berri ka maalin ciddaas baa ummaddan xaqooda iyo xuquuqda ay leeyihiin goobtaasi baa ciddaasaa matalaysa maanta ka fiirso oo waxaan odhan lahaa berri fursadda marka ay ku dhaafto ka qabasho male marka waxaan odhan lahaa ha laga fiirsado cid walba iyo meel walba iyo degmo walba cidda maanta iyada haldoorka u ah ee ummaddaa ku hagi karta waddada saxda ah ee ummaddaa waxaa ka maqan ee xuquuqa ay leedahay u dooyi karta ha doortaan u odhan lahaa waxaan jeclaan lahaa mar labaad iyo mar saddexaad in nabadda laga shaqeeyo walaaltinimada laga shaqeeyo laysgarab istaago wixii dulmawada ilaahay naga qabtaan leeyahay wax badan baa naga soo mara deegaanka wax badanna waynu soo joognay waxaa weeyaan maanta meeshu waxaa weya horta waa africana waan isnaqaanaa qaab bay u dhisan tahay qaab bay waddamada u samaysan yihiin ilaa kuwa horumarka sheegta ay leenahay waddamada africa kuwa lagu dayda ee horumarka maanta sheegta waynu garanaynaa qaab bay u dhaqmaan africa meel walba waxay leedahay beel dhexe leedahay annagu waxaan nahay beesha dhexe waan nahay beesha deegaankan maanta jira u ah lafdhabarka baan nahay haddaan ahay anigu ka xishoon maayo maanta inaan beesheeda sheegto ka xishoon maayo waxaa weeyaan waxaan leeyahay waxaanu nahay beeshii dhexe ee ahayd lafdhabarka u ahayd baan nahay markaa waxaan odhan lahaa walaaladada deegaanka aan wada leenahay ee soomaalida ah ee deegaanka nala degan war balnimayahow deegaankii waan wada leenahay bal annaga isu kaayara daaya annagu aanu tashano maxaa yeelay waxaan sababta aan saa udhahay waxaa weeyaan nin baana soo maray 15 sano wuxuu ina gaarsiiyey ina ognahay isagoo khaasatan qabiil gaar ah oo haybta uu sheeganaya ah uun gumaadaya baana soo maray marka hawl ka dara inay dhacdo dee annagu raalli kama nihin
haddaan nahay beesha deegaanka degan ee lafdhabarta weliba u ah annagaa tashanayne warba loo kaadiyo idinku deegaanka dadka nabadnimo ee walaalanada ee soomaalinimada aanu wadaagno iyo haybta waxaanu leenahay niman yahow bal annagu cid dambe oo annaga nagu disha magaca arnada ama nagu khaalinta ama dhib nagu gaarsiista ka raali ma lihin inayna de sii hogaamisaa marka waxaan leenahay dhibkii hore annagoo xasuusan dhib kale inaan maanta tunka saarano oonu raalli ku noqonno ma doonin annagoon cid cayimaynin cidna diidaneen waxaanu leenahay waxaan u baahannahay cid haybtanada sheeganaysa oo na matasha oo annaga aan na dulmiyeynin ummadda kalena aan dulmiyeynin dhib badan baa nagu soo maray magacan waana nagu baabi'iyey wax badan baa naga soo maray marka waxa weeyaan waagii ay timaado soomaali wanaagsan oo xor ah oo isku fikira oo isku mid ah ay timaado markaa allahna gaarsiiyo laakiin imika bal annagu dib baan isugu noqon ka oday ahaan iyo ka cuqaal ahaan iyo wax ka waxgarad ahaan annagaa dib isugu noqonayna bal ciddana matalaysa ee maanta ummaddan beeshan degta deegaankan soomaalida ee weliba lafdhabarta u ah cidda matasha ee meeshaa fadhiisay annaga nagu foofaynin annagaa ka tashan doonne bal soomaalida kale waxaan leeyahay walaalahaan nahay hanoo kaadiyaan waxaan diidanahay oo sidaa uga waxa weeyaan in marka idinku aad cabataan markaad idinku cabataan soomaalida kala hadlaya markaad idinku cabataan laydinku yidhaahdo ogaadeenkii baa xoole cirdoonnimo doonaya markaan annagu cabasho aan soo gudbisanana la yidhaahdo ogaadeenkii wax boobayey baa maantana wax boobaya oo doonaya dhulkii iyo wixii ka sheekeynayay taasaan nagu diidanahay markaa waxaan leeyahay soomaalida deegaanka aynu wada degana ee walaalahan nahay iyadoo geedi socodka doorashadu ay sideedii tahay laakiin waxaan ka hadlaya waxa weeyaan waar annagaa dib isugu noqonayna haddaanu beeshaan nahay ciddana matalaysa ee annaga aan nagu foofeynin annagaa soo saaranayna marka waxaan leeyahay please fadlan idinkoo sharaf leh oo maamuuskiina leh noo kaadi annagaa dib isugu noqonaynay haddaanu beeshaan nahay waxaan hadalkay kusoo koobayaa ilaahay wuxuu xunaha naga ilaaliyo xaasidnimada iyo cadowgu ma fiicna ilaahay ha naga dhowro deegaankeenna waxaan jecelahay inuu deegaan wanaagsan noqdo uu horumaro uu la jaan qaado deegaamada horumaray ee ka jira waddanka marka cid walaaba si maskax nadiifa oo wanaagsan inay u fikirtana rajeynayaa aadna waan ii salaamayaa taageerayaashadana meel walba ay joogaan hadday ka xisbi yihiin iyo hadday khaasatan aniga gaar ahaan ii taageersan yihiinba aad baan ii salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu